wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo kaashanaysa midowga Yurub iyo dalalka deeqaha bixiya waxay Hargeysa ay ka furtay shir ballaaran oo lagaga hadlayo sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa waxbarashada iyo tayada Soomaaliland ee dhinaca waxbarashada. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Professor Farax Cilmi Geedole xubno ka socday midowga Yurub UNICEF iyo dalalka deeqaha ka siiya dhinaca waxbarashada Soomaaliland ayaa ka qayb galay. UNICEF iyo dalalka deeqaha ka siiya dhinaca waxbarashada Soomaaliland UNICEF iyo dalalka deeqaha ka siiya dhinaca waxbarashada Soomaaliland UNICEF iyo dalalka deeqaha ka siiya dhinaca waxbarashada Soomaaliland UNICEF iyo dalalka deeqaha ka siiya dhinaca waxbarashada Soomaaliland qayb galay. sidoo kale xubno ka socday ururada bulshada jaamacadaha dalka ardayda macallimiinta iyo xubno kale ayaa goobjoog ka ahaa. Professor Farax Cilmi Geedole wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay culays fiican ay saarayso sidii waxbarashada loo tayin lahaa. waxaanu ka hadlayaa ujeedada shirkan. dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan ama forumkan aadka muhiimka u ah ee dib loogu eegayo wixii u soo qabsoomay waxbarashada sanadkii 14 wixii caqabado ku hor yimidayna lagu darsay sidii wax looga qaban lahaa. Elizabeth Paul Legend oo ah haweeneyda ka socotay midowga Yurub kana wakiilad dalalkaasi waxay sheegtay in midowga Yurub oo kaashanaya dalalka deeqaha bixiya ay waxbarashada Soomaaliland taageeri doonaan waxaana soo dhaweysay in dib u eegis lagu sameeyo waxbarashada Soomaaliland. Elizabeth Legend waxay sheegtay in midowga Yurub ay si laablayso dhaqaalaha ay siiso Soomaaliland ee dhinaca waxbarashada. agaasimayaasha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyana waxay soo dhaweeyeen shirkaasi waxaana soo bandhigeen labada cisho shirkaas u socon doono kaalinta wasaaradda waxbarashada iyo kaalinta ardayda macallimiinta iyo ururada bulshada. gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Saleeman Ahmed Guuleysna waxa uu sheegay in ka jaamacadahan iyo waxbarashadahan ay soo dhaweynayaan shirkan dib u eegista lagu sameynayo waxbarashada Soomaaliland. dhinaca kale wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyo dalalka midowga Yurub xubno ka socday iyo hay'adda UNICEF saxaafadda ay si wada jira ula hadleen shirkada ay qabtay waxaana sheegeen inay ku faraxsan yihiin in guul laga gaari doono hamiga waxbarashada Soomaaliland ee sanadka 2015